دقالو وادوتي لعكتي ويبلدوغو نابلدوغو دقالو واجتي درقي ويبلدوغو نابلدوغو دقالو والتي دابركي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن دعوة يلي لهانتين با كنا سو دوادا مركلا iyo mid kamid ah oo barnaamijyada ganacsiga iyo dhaqaalaha oo alaaba ka daawatan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland habeenka Arbacada ay Khamiista soo galayso 9 iyo barka habeenimo dawladda barnaamijkeena ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa barnaamij alaabaan ugu talagalnay inaanu ku dhiirigelino ganacsatada reer Soomaaliland ee ku dhiiratay inay wadankooda maal gashadaan isla mar ahaantaasina ay wax soo saar sameeyaan si ay ugu baaqato lacagtii rooga ahayd ee wadanka ka dhoofi jirtay isla mar ahaantaasina wadanka ay lacag u soo geliyaan لعبك بنقيلا أوتار بنانك خارجيو حبيب الروح برانا مال قبينا لعبك بنقيلا أوتار بنانك خارجيو حبيب الروح يا قوم على بقي وصدر له بني وشرب نعيد الزمان فصار وشوش كمان دون بعده سمان يتفكك عن غنطة لقالوا بري هروب وغوص ليلارو كما ويسو باين يقول كلا بقي وحصر له بني وشرب نعيد الزمان فصار وشوش كمان دون بعده سمان يتفكك عن غنطة لقالوا بري هروب وغوص ليلارو ganacsigu waxa uu ka mid yahay ilaha qaybta ka ah kobaca dhaqaalaha guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadiniinta Soomaaliland iyagoo ka faa'iideysanaya siyaasadda dhaqaalaha ee dalka oo salka ku haysa nidaamka suuqa xorta ah iyo ganacsiga furan iyo xasiloonida weheshanaysa nabadda ee uu ku naaloonayo dalkani Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay suurto gelisay inay maalgashi ku sameeyaan dalkooda ganacsatada Soomaaliland iyagoo ka faa'iideysanaya fursadaha kala duwan ee ka jira dalka tii ay ujeedadoodu tahay inay iyaguna ka faa'iideystaan dadkoodana uga faa'iideeyaan iyadoo ay u dheer tahay in lagaga maarmo maalgashigaasi badeecadihii dhammaanba dibadda laga soo waariday isla markaana ay lacag adagi wadanka kaga bixi jirtay taasi oo haatan u baaqata dalka halka ay shaqo abuurna ka heleen muwaadiniin aad u tiro badan sida aynu ka warqabno wadan waxa uu horumar gaadhaa marka uu ka maarmo waxyaabaha dibadda uu ka keensado iyadoo oo wadan walbana heerka horumarkiisa iyo isku filnaanshihiisa looga miqyaas qaato habba doorka wax soo saarkiisa gudaha wadankaasi iyo koobnaanta waxyaabaha dibadda uu uga baahan yahay dalkeena Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa muddooyinkii u dambeeyay marba marka ka dambaysa soo kordhayay warshadaha soo saara waxyaabaha kala duwan kuwaasi oo ay dalka ka hirgeliyeen muwaadiniin isku geeyay hantidooda warshada cuntooyinka ee Samsam Food Industry waxa ay ka mid tahay warshadaha ka howlgala Soomaaliland gaar ahaan caasimadda Hargeysa taasi oo samayso cuntooyinka kala duwan gaar ahaan dhinaca sharaabyada caanaha iyo waliba jibista warshada Samsam waxa iska leh muwaadiniin reer Soomaaliland ah kuwaasi oo hantidooda ku aaminay dalkooda hooyo taasi oo ay fursad shaqo ugu abuureen dhalinyaro fara badan oo bilaa camal ahayd iyo muwaadiniin kale oo bilaa shaqo ahaa haddaba toddobaadkani barnaamijkeena waxa aynu wax kaga weydiin doonaa maareeyaha warshada Samsam Food Industry
axmed maxamed cilmi inuu warbixin inaga siiyo warshadani sidii ay u samaysantay waxyaabihii ku kalifay inay waddanka ka hirgeliyaan iyo waxyaabaha kala duwan ee warshadani ay samayso. waxaan idinka mahad celinayaa booqashada aad noogu timaadeen warshadeeda Samsa Food Industry waana ku mahadsantihiin aadna waan ugu faraxsanahay fursadda aadna siiseen inaanu halkan dadweynaha aan uga warano waxay tahay shirkadda Samsa Food Industry. shirkadda Samsa Food Industry magaca markii hore waxa la oran jiray Foster Samson, waxa la aasaasay 2004. waxa ay soo saartaa waxyaalo kala duwan oo 3 warshadood bay hadda ka koobantay warshadu. qayb soo saarta sharaabka la qasto ee dadku cabaan, nacnaca iyo chibista baasha la yiraahdo ama snackska. 3 warshadood baa hadda wax soo saarka warshadu ka kooban yahay. waa shirkad warshad leeyahay, dhinaca kalena waa shirkad ay dadku shuraakoobeen aan qof kaliya lahayn. suuqa ugu badan ee ay wax ka iibisana waa Somaliland. runtiina intii ay warshadaas u jirtay wax badan bay suuqa ku soo kordhisay. alaabadeedana waa laga wada helayaa dhammaan jamhuuriyadda Somaliland. way jirtaa waxyaalo aan u dirno sida Puntland oo kale iyo Soomaaliya Muqdisho ah. dadka qaarkood waxay alaabta geeyaan wadamada jaarkeena sida Ethiopia iyo Djibouti ba iyagoo markaa iskoodu qaata. laakiin anagu toos meelaha ay noo joogaan wakiiladu ee aan wax u dirno waxa kamid ah dibadda markay noqoto waa Soomaaliya iyo Muqdisho. markadkeeguna markaa wuxuu laakiin u badan yahay 80% waa Somaliland. warshadda Samsam Food Industry maxay kaga duwan tahay warshadaha kale ee dalka ka jira? warshadda Samsam Food Industry waxay kaga duwan tahay horta ma jirto warshad 3 shay ama 3 item soo saarto kala duwan oo maanta dalka aan ogahay. taasuna runtii waxa ay ku soo gashay waxa weeye markii aan ogaanay in suuqa Somaliland uu kooban yahay qasab waxay noqotay warshadaha way wax lagu daro hadiyo kale maadaama inta badan aad wax u dirayso Somaliland waa inaad shaygii hore oo ku ekaanay waa inaad hadiyo goor wax ku soo tartaa. sideedana warshaduhu albaab laga galeeyay laakiin albaab laga baxa malaha. hadaad gasho waa inaad hore u sii socoto dib u socomaysid halkiina taagnaamaysid. ma ku filantihiin baahida dalka ee ah waxyaabaha aad soo saartaan? marka la qiyaasayo wax soo saar ama sector laga waramayo horumarkiisa 3 dhinac waa laga hegaa. dhinac waxa laga hegaa output-ka uu soo saaro wax soo saarkiisa, dhinacna waxa laga hegaa employment-ka uu sameeyo, dhinacna waxa laga yaabaa lacagta hard currency ama export-ka uu sameeyo. markii dalka gudihiisa noqoto inaan ku filanay waxaad ku garan kartaa meherad kasto aad gasho Samsam Food Industry wixii ay soo saarto waad ku arkaysaa. sharaabkii waad ku arkaysaa, chibistaad ku arkaysaa, nacnacaad ku arkaysaa. waliba saas oo tahay kuma shaqeyno capacity-gii ay warshadeedu awood u lahayd. waxaan ku shaqeynaa capacity ka yar. warshadaha sidoodaba marka la doonayo in waliba ay faa'iido soo saaraan oo laba in full capacity lagu shaqeeyo waxa muhiim ugu yaraan 2 shift inay ka shaqeeyaan warshada. oo shiftna subaxii soo galo shiftna habeenkii galo. sida diraadina warshada aan aflaatanka saacad ay noqoto warshad wax soo saar leh wax soo saaraysa. marka anagu hadda hal shift uma shaqeynaa. warshadaha kale dalka dhamaantoodna waa sidaasina la mid yihiin. marka waa problem kulliga xagga ka jira suuqa ka jira way. kaalin intee la eg ayay warshadda Samsam kaga jirtaa dhinaca horumarka dalka iyo kobaca dhaqaale? horta adduunka markaad maqasho wadamada horumaray waxay ku horumareen horta warshado. number 1 waa in taaqad wax allaale waxa ay maanta dharkaad xiran tahay, qalinkan aan sito, microphone-kan adigu la hadlayso, kameradan, buugaagtan iyo waraaqahan aan isticmaalayno, everything horta warshad baa soo saarta. wadamada horumarayna waxaan warshadaha ay waxay ku horumareen. wadan haduu warshado yeesho oo uu heerka gaadho wuxuu yeelanayaa power. مثلا wadamada nimanka leena wadamada ugu powerku la adduunka powerkoodaas wuxuu salka ku hayaa waa warshado ama technology way. marka warshaduhu number 1 waxay ka qayb qaataan wadanka dhinac income bay soo geliyaan. waa hadii export sameeyaan dakhli kala soo gala. lacag ka bixi lahaydna way baajiyaan.
sidoo kalena waxay abuuraan shaqo abuur bay sameeyaan sumcadda waddankuna way kor bay ugu kacdaa waddanku markuu noqdo waddan warshadoobay waa la tixgeliyaa marka caalamka la isugu yimaado shirarka waxaa loo aqoonsanayaa waddankaasi waddan baawar leh maxaa ka hortaagan muwaadiniinta reer somalilan inay wadankii maalgashtaan waa kala duwan yahay in sectoriska la maalgeliya investmentiga lagu samayn karaa waxaa loo qaybin karaa sektarada investmentiga ama qaybaha ganacsiga waxaa loo kala qaybiyaa waa agriculture wax ka soo baxa oo beero iyo xoolo iyo kalluumaysi iyo waxaa la xidhiidha waxaa kaloo jira iyadana service sector wax la yidhaahdo oo adeega sameeya iyo waxa la yidhahdo industry ama manufacturing sector saddexdaas sector ba hadii dhaqaalaha ugu waaweyn waddan kastaba innaga waxaa ugu badan dadkeenu maanta ay ganacsatadeenu ku mashquulsantahay waa service sector hadday tahay tafaariiqleyda jumladleyda hadday tahay transportationka oo gaadiidkii badda cirka dhulka hadday tahay isgaarsiin hadday tahay xawaalado hudheelo waxa la service marka waxaad moodaa in dadkeenu serviceka ay xooga saareen laanna uu uga fudud yahay marka loo eego manufacturingka warshadaha runtii waxyaalaha aan isleeyahay waxay u diideen dadka reer somalilan gaar ahaan dadka ganacsatada iyagu lacagtii haysta iyo maaliyaddii haysta maxay u geli waayeen warshadaha waxaan u soo qaadi karnaa dhowr qaybood number 1 waxaan odhan karnaa waxa weeye horta ma jiro waddankeenna dad skilled ah oo xirfadle oo xirfadii iyo technicianisa oo yaqaana farsamadii looga baahnaa warshadaha waxa uu yaray electrician inaad helin haddii ciladi kaa gasho mataqaanaa mashiinadaadii marka number 1 horta waxa weeye ma jiraan skillska dadkii leh ee ka shaqayn lahaa warshadaha number 2 waxaan odhan karnaa warshaduhu way ka riski badan yihiin ganacsiga kale مثلا marka hadaad warshad furto anytime baa horta dhici karta in mashiinadaas cilad isticmaado dibadna ciladaas marka timaado waxa laga yaabaa productionkaaga oo dhan istaagay waxa laga yaabaa in muddo dheer ku qaadato inta spare part ki helaysay intii ay ku soo gaadhayeen dhinaca kale warshadaheena waxa xoog ku haya culays ku haya tartanka dibadda kaga imanaya ama waxaan aan leeyahay globalizationki inaga ganacsatadeenu maadaama ay focus ku yihiin oo ay had iyo goor ereenayaan alaabta dibadda marka halkan warshad ka furto waxay isku dayeen inaad waxa aad hayso wax la mid ah wadankii keenan dibadna waxa weeye alaabtaadii ay kugu falisayaan lama tartami kartid marka way adagtay inaad sidoo loo tartantaa shirkado ka waaweyn wadamo ka waaweyn oo ka facility badan ku xidhan oo ma garanaysaa adigu facility badan ma haysid halka markaad joogto marka dadkeenaas dibadda alaabta ka keenayaan pressure bay ku tahay runtiina warshaduhu waa waxyaalaha loo baahayay had iyo goor ganacsiga u baahan weeye dawladda isagu dawlad la'aan ma shaqayn kara wuxuu u baahayay wax la protection in la ilaaliyo oo gaar ahaan inta ay korayaan ee kobcayaan ee quwadaysanayaan iska celin karaan ka dibadda waa in had iyo goor la xanaaneeyaa way baahan la subsidize karaya imika haddaan kuu sheego kulada maraykanka iyo jarmalka iyo 100 sannadood ayay ilaalinayeen warshadahooda oo ay ka ilaalinayeen tartanka dibadda oo ay alaabta dibadda ka yimaanaysa cashuur badan la saaray si loo dhiirigeliyo alaabta gudaha marka imika markaad waddankeena joogto wax ku furan adduunkii oo dhan baa kula tartamaya marka ninkaaga miskiinka waxba hayne waxa ay isu geeyay adduunka oo dhan lama dagaalami kartid Yemen baa laga keenayaa Imaaraadka laga keenayaa Sacuudiga laga keenayaa China laga keenayaa Pakistan India Bangladesh everywhere meel allaaliya meeshii ay dadkaas wax ka keenayaan ganacsatadu adduunka maanta way isku furfurayeen ayaa inta lagu keenayaa dibadna warshadaadii oo markii hore ba capacity-geedii aan ku shaqeynay oo aad magaranaysaa margin aad saaraysay aad u yaraa marka waxaas kugu furmaana waxa noqonaysa marka adkaanaysa marka dad badan waxa iska ilaalin hadiyo goor maadaama wadankeena taariifada aad u hooseysa taariifadu waxa weeye cashuurta laga qaado alaabta dibadda ka imanaysa customs duty-ga waa aad ba hooseysa inkastoo ganacsatadu ka qaylayaan haddana marka loo eego wadamada dhinacyada inaga xiga Ethiopia iyo Djibouti iyo waxay noqonaysaa imati wax aan qiimo lahayn sanati مثلا shaygii hadda ay siinayaan $30 ama $5
xagga dawladda waxa uu qoran yahay tacriifadu $5 iyo wax ka yar marka ka cashuurtii lagu dhufto oo percentage base looga dhigo cashuurtii lagu dhufto ee haddana rate-kii shilin Somaliland kana haddana isna ka yaray kii suuqa cashuurtii waxay noqonaysaa waxaan wax weyn ku soo kordhinay marka shirkad weyn oo taada loo mido warshad dibadda oo ka capacity badan oo ka cost yar marka ay lagu soo daayo marka culays ugu kanaysa marka inta badan dadkeenu waxay ugu taagayeen taas waa kamid waa problemska kamid ka dadka ka hortaagan waxa loo warshada loogu dhiiran waayo competition dibadda competition waa laba nooc tartankii laba nooc buu noqonay mar waa gudaha oo warshadii gudu ku yaali way tartamayaan kaas wuu fiican yahay tartanka gudu waxa weeye quality-giina way hagaajinayaan price-kiina ma qaadi karaan marka tartan dhexdii ka jiro marka sida u kala efficiency yihiin u kala fiican yihiin maamulkooda iyo waxaas iyo cost-kooda sida u minimize gareeyaan ay suuqa ugu kala horeeyeen marka tartanka gudaha yahay laakiin tartan dabeed marka kugu furan adiga imika misalan nin baa wuxuu furay warshada buwaagta wad garanaysa aad paper factory tusaale ku siinay buwaagtaas materialka wuxuu ka soo iibsanayaa waa wadan dibadda wadanka gudihiisa ma yaalo buwaagtii waxaa laga keenayaa Indonesia ayaa laga keenayaa oo dadkeena reer Somaliland hatta iyadoo warshadii buwaagta halkan laga furay haddana waxay doonayaan inay ka keenaan Indonesia India Imaaraadka Yemen marka ninkii lama tartami karayo miyaanay ahayn in qoladan warshadleydu ay ganacsatada heshiis la gasho tiraado warniyo alaabta inta leegad keenisaan iyadoo qiimadeeda halka kaga keenayseen ayaanu idin siinay maadaama idinkaan cashuur badan la idinka qaadin oo qaabka inaad ula negotiate gareysaan miyaanay ahayn walaa arrintaasi waa arrin fiican haddii yeelayaan waana warshadaana waan iska wada warhaynaa waxaad muddaa inay ka santaagayaan oo aanay doonayn warshadaha dalka waxa ka soo baxa inay qaataan iyagu laakiin ay ka jecel yihiin dibadda ka keenaan discount baa loo samayn lahaa warshadaheenu capacity fiican bay ku shaqayn lahaayeen way markaas capacity kala kordhiyaba unit cost-kii hoos buu dhacaya aad wax ku soo saaraysid waan ka warhayaa anigu shirkado badan oo isku dayay inay u bandhigaan laakiin waxaad moodaa in still dadkeenu ku qofuleeyihiin xagga dibadda runtii ganacsiga marka la yidhaahdana waxaa la yidhaha wadaniyadda iyo waa kala duwan yihiin ganacsigu tartan baa meesha lagu jiray nimankaa lafdigooda tartan baan ku jirnaa oo waxaa laga yaabaa markaad warshadahan ka furto inuu nin alaabtaa keeni jiray dabadeedna alaabta halkan ka soo saarto uusna dagaal uu halkaa dabeedna soo qabsado qolada warshadaha iyo waxyaabaha dalka lagu sameeyo waxaa la dhahdaa waxa ka jaban kuwa dibadda laga keeno maxaa arrintaas sababaad u malaynaysaa horta waddankeenna waa su-aashaas aan kaaga jawaabay waxa weeye horta anigu inta aan ogahay alaabteeda aan iibinaa way ka jabantay suuqa alaabta taala way mar hore ka bixlaan suuqa 10 sanadood baan imka shaqayn ya haddii alaabtaasi aanu ka qaalisanahay kuma aanan jirnay dhinaca kalena waxa weeye runtii alaabta si ay u jabto alaabta aan iibinayna ay u sii jabto waa inaan capacity weyn ku shaqeynaa capacity-geegu fuula soo garan number 2 waa in chance la siiyaa warshaduhu ay magaranaysaa dee ku adkaadaan ku muruqaystaan oo ku xoogaystaan waayo waxaan la tartamaynaa sidaan ku sheegay dee shirkado naga waaweyn oo hadii naga facility badan oo dawladahoodii ay u fureen magaranaysaa wixii tasiilaad ay u baahnaayeen iminka warshadahani iyaga istifaaca cid difaacda ma jirto maxay yihiin qorshayaashiina dhow iyo kuwiina fog wallahi niyahow waxaa horta 2015 waxaan doonay inaan kusoo kordhino warshad kale oo soo saarta looska oo la dubay oo la habeeyey waan adigii hadda soo arkay aynu tagnay waxaan isku daynay bal istaraatiijiyadeedii hore inaan wax ka yar bedelno oo ay alaabta dibadda laga soo iibinaya raw materialka bal in aanu helno raw material gudaha ah oo nooga fudud marka waxaan isku daynay looskaas baan ka fikirnay inaan kusoo kordhino shirkadda warshadii iyo qalabkii wixii dhow waan keenay laakiin rakibaadda baarsan imika si aanu u helno raw material gudaha ah waxaanu tijaabo ahaan ilaa 16 beerood oo ku yaala Agabar aan u qaybinay seedkii looska lagu beerayay runtii
ilaa hadda successful buu noqday waxaan ogaanay in waddankeenu uu ka bixi karo lowsku waxaan rajeynaya in iminka 2 bilood soo socda productionkii beerahaas uu soo baxo taad markaa runtii waxaan uga jeednaa dhiirigelin xagga beeralayda dalka in dalagyo ka duwan kuwii hore ay la soo baxaan dhinaca kalena ay warshad helaan waxa kale ku sheegay hadii goor warshadaha raw materialka ay u baahan yihiin dalkeena haddaynu isla waddankeena raw material ka raadiya innagii baa waxaan ku jirnaa deficit misalan beeraha oo kale way ogtahay ilaa xataa tamaanada ugu yaro inaguma filla tamaanada dalka ka soo gooda waxaa kasta tamaanadiida Ethiopia oo ka timi oo soo galaysa maalin kaste marka la rabo in raw material la rabo in wax la warshadeyn hadiyo goor waa inuu jira surplus wax dheeraad wixii suuqa misalan hadii wax liin dheeraad aynu aragno suuqa taal hadiyo goor oo ay liin badan soo goodo markaas waxa laga fikiraa ma ogtahay inuu wixii la warshadeeyo laakiin hadii shortage ba jiraba laguma xisaabtami karo warshadeyn ma ogtahay marka inaga mushkiladayna tahay beeralaydeeni laftigooda si aan ku sheegay warshadaha uu dawladda uma baahnaa hatta beeralaydu waxay u baahan yihiin in la gacan qabto in la dhiirigeliyo in hadii ay facility la siiyo si ay u tartamaan oo wax soo saarkoodii kordhiyaan hatta seedka hatta ay qaadanayaan in loo raadiyo seed fiican oo productivity-giisu ka fiican yahay halka imika suuqa inta ka iibsanayaan moogti marka haddaan rabno inaynu wax ka qabanno la isku xidho beeralaydii dalka iyo la isku xidho warshadaha oo kale waxa loo baahanayaa marka in beeralaydii kor loo soo qaado horta marka hore beeralayda uu ka yimaado xaggeeda surplus ka yimaado kadib dibadna marka ay arkaan warshaduhu waxay ka fikirayaan marka sidii ay uga faa'iideysan lahayn raw materialka way raw material gudaha marka helayso iyo marka dibadda helayso gudaha horta fiican ya laakiin haddaan inagii aynaan surplus ahayn waa mushkilad moogta gabagabadii barnaamijkeenu taaganay maxay tahay fariinta aad bulshada ku dhaqan daafaha dunida min waqooyiga America ilaa iyo halkan ay joogna adduunka daafihiisa kala duwan telefishinka qaranku gaala daawadayaal fara badan baa halkan ka daawanaya oo adduunka dhan ku kala sugan maxay tahay fariinta aad jeceshahay halkan inaad gabagabada uga marsaa waxaan runtii fariinta doonayaan inaan u diro dadka reer Somaliland meel kasta ay joogaan adduunka war ganacsiga aynu bedel ka aynu wax ka bedel oo loo soo leexdo ka warshadaha way warshaduhu employment bay leeyihiin waxay kale oo faa'iidooyinka leeyihiin waxa kamid ah dadkiiba skills bay baranayaan in dadka anaga noo shaqeeya markii hore xabad kama garan mashiinada waxay dad magaranaysaa caadi oo iska loo kala hay maanta laakiin waa machine operators wixii ka xumaada xataa iyaga sameynaya marka ma aha un dakhli ay ka helayaan meesha warshadu laakiin waxay helayaan waa skills kaasi marka anaga wuu caawinaya warshadaha kale soo socdaan wuu caawinaya marka waxaan leeyahay dadka dibadda number 1 waddankeena wuxuu u baahan yahay in wax laga qabto xagga employmentiga shaqo la'aanta ilaa 10,000 qof ayaa sanad kaste ama dugsi sare ama jaamacad soo dhameeya oo suuqa maalinta ka dambeeya tiradooduna way sii kordhaysaa dadkaas waxay u baahan yihiin in shaqo loo abuuro waxyaalaha shaqooyinka abuurayna waxa kamid ah warshadii dawladda laftigeedana waxaan leenahay warshadaha policy baa ay u baahan yihiin in dawladdu istaraatiijiyad iyo policy ka yeelato in aan warshadaha lagu sii deeynin warshadaha kale ee waaweyn adduunka la tartamaya intay korayaan ee kubcayaan ee ay istaagayaan hadii laba ku rooya aynu soo gaarino heerkooda waxay u baahan protection bay u baahan ma inaynu ku xisaabtano leeyahay waa free trade waddankeenu wax kastana waa la keenaya wax kastana waa la iibin karaa marka waxaan oran lahaa dawladdu si ay u dhiirigeliso dadka gaar ahaan dibadda ka imanaya raba inay investment dalka ku sameeyaan ama gudaha noqdaan ama dibadda noqdaan inay dawladdu u guarantee garayso in dadkaasu ay facility ay u baahan yihiin ee waliba gaar ahaan protectionka aan ku sheegay in ay helaan waxaan leeyahay runtii ganacsigu wuxuu baahay in la kala duduwo la kala jiyo oo aan meel lagu wada yaacin iminka mesela waxa qof baa wuxuu keenaya xataa fikrad cusub oo dalka ku soo kordhinay fikradii cusba tacab badan iyo hawl badan iyo waxba kaga dhacaya marka dambe la arko in fikradii najaxday markiiba dad baa koobi gareynaya wixii ya tusaale fiican hadaan ku siiyo waxa
مثلا بساسكن هذا ليلة هذا برية قلبي مدة سنة ده أيها رجع فكرة ده كياني يجوا أن ركاب سيدين وقف يلا بقف سيده أي بربرية هرجيسية بورمية هرجيسية وكل بحين لا برعو سيدك أوبرا مركي وحي الأركي إني نشحذي أيها دي بدنا قد أكفر يا مركي حنا قلنا إن نقف نف فكرة حساب ذلك كياني نيك لو أو يسوق فكرة كسو شقي لقوا بكرة مركي دولة مثلا وحياة كل يرين قرتو إن كان عسير لك ردوح بي إن لا قف في فكرة حساب ذلك كياني كسو قضية أتليست صدق سنة بل أنت إنفستمنت تيجي سيزون قنص خلاص شيء فرارها ما القبيل هذا لعك بقي لا أوتار بنانك هذا رجيو حبيبة الروح فرارها ما القبيل هذا لعك بقي لا أوتار بنانك هذا رجيو حبيبة الروح يا قوم كلا بقي وحوزر له بني وشرفنا الإنسان فصار صوت الجبل دون بعده سقط سيسفك عن غمزة لقالوا بري هروب وغوص ليلارو كما ويت باين يا قوم كلا بقي وحوزر له بني وشرفنا الإنسان فصار صوت الجبل دون بعده سقط سيسفك عن غمزة لقالوا بري هروب aad ayaad u mahadsantahay waqtiga qaaliga ee aad doortan aad baan kaaga mahadcelina aad baad u mahadsantahay daawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni ganacsiga iyo dhaqaalaha oo toddobaadkani aynu ku booqanay isla mar ahaantaasina aynu ku tagnay warshada soo saarta cuntooyinka ee Samsam Food Industry daawadayaal intaynu barnaamijkani mid lamida ku kulmi doono waa anigu maxamed ciise aadana cabdiraxiin muuse yuusuf iyo cali ismaaciil cali sharaf loo idinkaga tegaya waqtigu ha idin wacnaado baldugo dhaqaalu waa jidkii dherage way baldugo dhaqaalu waa dhaqii ahlige way baldugo dhaqaalu waa laftii dhabar